markasto aad qof dumar la kulmaysid waa inaad على udgoona waa inaad hadaadan على uraayahanin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waani waa Cabdifataax Faarax Maxamed. YouTube channel-ka daawanayso YouTube channel-kayga Cabdifataax. Hadday tahay marka ugu horreysay YouTube channel-kayga soo booqato fadlan subscribe garee. Haddaad hore noola joogtiina mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba gacmo furan ku soo dhawow. waxaan maanta ka hadlaynaa waxaan maanta idinku soo talagalay muuqaalkana maanta wuxuu ku saabsan yahay sida uu ku saabsan yahay title-ka hoose ka soo aragteen. waxaan ku hadlaynaa 5 waxyaabood oo ay dumarku ragga ku jeclaadaan, dumarku inaga nagu jeclaadaan. anigoo nin ah waan iska soo qaato salaam badii raggan anigoo kamid ahay 5 waxyaabood oo ay dumarku ku jeclaadaan ragga baynu ku hadlaynaa. haddaba 5 waxyaabood adigaaga video-ga daawanaya dad single tahay, haddaad xaasla tahay, haddaad hadda search garanayso aad ku maqan tahay 5 way ku anfacaysaa. haddaad 5 iska hagaajiso 5 iska dhisto waxaan hubaa in qoftaadu banaanka ay ku taalo. ka faa'iideysi wacan waan bilaabanaynaa 5 qodob ugu horeeya soo qaadanaa. kan koowaad oo ah labiska. haddaad labiska uu qurux badan yahay oo aad labis badan tahay oo mar walba dharkaagu ay okay yihiin oo si wacan aad u soo labisato oo aadan cali uraayahayn qoftaadu waa banaanka ku taala. waata koowaad waa labiska. haddaad nin raga tahay oo hadda search garanaysid ama haddaad xaaskaaga ay kula joogto mar walba isku day. dumarku waxay jecel yihiin ninka labiska badan ee labista. kow waa inaad labiska iska hagaajiso. kan labaad wuu gudbinaa. kan labaad wuxuu noqonayaa akhlaaqda iyo anshaxa wanaagsan. haddaad wiil akhlaaq wanaagsan tahay oo anshax wanaagsan tahay oo afgaaban tahay qoftaada banaanka ku taala. haddii kula joogto aad xaaskaaga tahay hadir oo ay gurigaaga joogto xaaskaaga marnaba laga yaabo inay sina kaaga tagto. haddii aad searching garanayso oo aad ku maqan tahay oo hadir oo aad raadinaysana qoftaada banaan bay ku taala. dumarku way jecel yihiin wiilka afka gaaban ama ninka afka gaaban ee akhlaaqda wanaagsan ee anshaxa wanaagsan way jecel yihiin. waa qodobka labaad. ka saddexaad oo noqonaya xorriyadda. waa inaad madax bannaan tahay oo haddii aad qof jeceshahay ama xaas aad leedahay waa in aad isku filan tahay. adigu isku filnaanshaha waxaa ka wadaa waa inaan gacanta lagugu haynin, waa in waalidka gacanta ay isugu haynin. dumarku waxa ay jecel yihiin ninka isagu ismaamula oo reerkiisa biilka u keensada oo cidina aysan u biilin. hadduu gabar jecel yahay gabadhiisa isagu oo aysan weli isguursanin xorriyad leh oo cidna aan amar ka qaadan oo isagu wuxuu soo shaqaysto soo xogsada keena. dumarku waxay jecel yihiin ninka isku filan. waa saddexaad waa inaad isku filan tahay adigaaga video-ga daawanaya. haddii gacanta lagu hayo ka bax gacanta lagu hayo, waayo dumarku ma jeclaan in gacanta lagu hayo. haddii aanu gudubno kan afraad oo aynu qodobka afraad u gudubno. qodobka afraad waxa weeyaan muhibbada iyo kalgacaylka. waa in aad kalgacaylka wax ka taqaano. waa inaad qofta dumarka ah aad macnihiida hadal wanaagsan, hadal macaan oo soo jiidanaya, hadallo qalbigeeda taabanaya, hadal ay markay kaa tagto kale ay kula joogto kugu xasuusato, markaad ka maqan tahay ay kugu xasuusato. waa inaad kalgacaylka muhibbada iyo kalgacaylka waa inaad wax ka taqaano. waa kan afraad. kan shanaad waxa uu noqonayaa kan shanaad haddaynu soo qaadano kan shanaad waxa uu noqonayaa qodobka shanaad waxa uu noqonayaa carafta iyo udgoonka. haddaad mar walba udgoon badan tahay oo caraf badan tahay tusaale ahaan kaba soo qaad qoftaa jeclayd waa waxaad habeenada kamid la kulantay. waxaan ku odhi kulan weligeen baanu kulmi jirnay. kulanku maahan waa la kulmay habeenkii. caadada iyo dhaqanka waxaanu dhallinyaradeennu inay isballansato oo la kulmo la isku yimaado. qoftaada u timi waad soo cadarisay, waad soo labisatay cadar udgoon baad iska soo dhigtay, caraf udgoon baa kaa soo baxaysa. qoftaada u timi qoftaada habeenkaa way dareemaysaa inaad kala kacsan tahay. waxaan ku inaad udgoonkaaga way dareemaysaa inta ay kula fadhido way kugu raaxaysanaysaa, hadalka ay ku raaxaysanaysaa. macnihii udgoonku waa caraftu. waa dumarku aad buu jecel ninka udgoonka badan ee carafta badan. cali uraayo shiiraayo dumarku ma jecla saaxiib. habeenkii waad kala tagteen. habeen labaadkii waxaa laga yaabaa adigoon soo labisan ama aan cadar soo marin laga yaabo inaad ciyaar ka soo baxday, inaad DSTV ka tin, inaad maqaaxi ka soo kacday oo shiirayo dhidisan oo meel buuq badan camal aroos ka yimid oo kale oo aroos ka soo tegay baa u timi idinkoo balansan. habeenkii iyo caawa way kala garanaysaa. laba farqo weyn baa u dhexeeya. waxaa laga yaabaa habeenka caawa aad u timi adigoo aan wax cadar isku soo buufin, adigoon carafin udgoonin, laga yaabo inaadan soo qubaysanin, in ay inta aad la joogtid ay dhibsato hadalkaaga. hadda inta aad la joogtid joogtaanka aad la joogtid inay dhibsataba
habeenkii horena way ku raaxaysanaysaa hadalkaagii sheekadii muxiibadii macnihii dee haasaawihii waa u kala kacsanaa. caawana waxaa laga yaabaa in aysan kuwa soconinba oo dee adiga laftikaaga waad ka dareemaysaa, qofta dumara hadaladeeda ka dareemaysaa. marka waa qodobka shanaad oo ugu muhiimsan in aad mar kasta oo aad qof dumar u tegaysid ama aad qoftaada saaxiibtaa la ballansan tahay ama aad gurigaaga ka baxaysid oo aad xaaskaaga intaad ka tagtid usoo laabanaysid waa in aad udgoon tahay, waa inaad caraftaada waxaan ku ridee marka aad guriga soo gasho in laga dareema. markaad xaaskaaga u timaado ama markaad jacaylkaaga u timaado waa in ay dareentaa dee inaad kala kacsan tahay. laakiin cali uraayo shiiraayo haddaad tahay saaxiibow waxba meesha kuma yaalaan. qoftaasna lagama yaabo in aad hanato. waxaa laga yaabaa qoftaas inay kaa boodo ay tiraahdo kana cali uraayo shiiraayo weeyaan, cali udgoone carafoosa uraysa udgoon. mar kasta oo aad qof dumar la kulmaysid waa inaad cali udgoone waa inaad hadaadan cali uraayo ahanin. maanta videogan intaas ku eegyahay 5 qodob baan maanta videogan kala hadlanay. waxaanan doonayaa inaan ka dhigo part 1 part 2 part 4 inaan ka dhigo barnaamij taxana ah oo u dhaxeeya ragga iyo dumarka si ay idinku uga faa'iideysataan aniguna aan uga faa'iideysto. kulli dee waad ka faa'iideysaa, marka waxaa doonayna ka dhigo part 1 part 2 part 4 inaan saa wado oo aan ka dhigo barnaamij aan kusoo kordhiyay channelkayga oo challenge-yadii iyo baraankiyadii ka duwan. aad iyo aad baad u mahadsantahay daawashada aad daawanaysay videoga. like saar haddii aad ugu cusub tahayna channelka subscribe rukumo. kamarada waxa ay hayso oo sida quruxda badan igu duubaysa xaaskayga oo aad u jeclahay oo iyadana ka cudur daaratay in videoga ila duubta maanta. aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan idinkaga sii tagayaa intiina muuqaalka ku kulmayno. sidaas iyo nabadgelya.